بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته صار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، halkan waxaan maanta ku qabanaynaa casharadeenii wacyigelinta ahaa jaaliyadda Soomaalida loogu talagalay ayaanu halkan kasii gelaynaa, khaasatan tafsiirka suuratul mursalaat ayaan ka bilaabaynayo in sha allahu tacaala. bismi illaahi araxmaani araxiim. magaca ilaahay baan ku bilowday, allihii naxariista caamka ah, naxariista guud iyo midda gaarka naxariisanayaan magaciisaan ku bilaabanaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanah: waalmursalaati curfan. waalmursalaati kuwii la diray, almalaaikati almursalaati, malaaigtii la diray oo maaragtay waxyiga lala diray, waxyo loo soo dhiibay oo maaragtay gaarsiinayday maaragtay ummadda waxyiga lasoo gaarsiina ambiyada ilaahay maaragtay usoo dhiibaysay ayaan ku dhaartay wiil orfan, yacni raacid isdaba joogaan. falcaasifaati falmalaaikati alcaasifaat, ama kuwii dhabanayay oo malaa'ig laga dhigo sidaasoo kale maaragtay casfan dhabasho, yacni surcada iyo degdegta ay la ordayeen oo waxyiga markaas ay gaarsiinayeen, kala saaraya xaqa iyo baatilka, xalaasha iyo xaaraamta, kala saaraya ambiyada ay gaarsiinayaan. wannaashiraati kuwii fidinayay ayaa maaragtay ku dhaartay nashran, fidinayeen, yacni maaragtay waxyigii ama dabelihii haddii laga dhigana waxaa weeye roobkii iyo maaragtay sidaasoo kale daruurihiisa fidinayeen waa la yiraahdaa, oo markaa taa kale lagu fasiro. marka kuwaasaan ku dhaartay calaa ayat xaal, mid kastaba ilaahay makhluuqaadkiisuu ku dhaaranaya, oo waxa ilaahay u bannaan weeye oo qofka muslimka ilaahay keliya inuu ku dhaartaa la rabaa, laakiin ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa yacni makhluuqaadkiisa wixii uu doono ku dhaaranayaa. falfaariqaati kuwii kala geynaya farqan, kala geyn, yacni kala bixin, yacni waxaa weeyaan la ordayay waxyigii lagu kala saaraya xaqiya baatilka, lagu kala saaraya ambiyada ilaahay u gaarsiinayay. falmulqiyaati kuwii ridayay dikran, qur-aan ama dikri wax xuska waaye, qur-aanka loo jeedaa, soo gaarsiinayo malaa'igta ilaahay waxyiga soo gaarsiinayay. dhammaantooda marka waxay ku soo aruurayaan in waxyiga laga dhigo iyo in maaragtay dabeylihii iyo roobkii iyo risqiga ilaahay subxaanahu watacaala, taasoo tafaasiira ku jirta kulli. laakiin waxaa weeyaan meeshaasay ku soo aruurayda, ilaahay ku dhaaranaya, makhluuqaadkiisaasuu ku dhaaranaya. marka muxuu ugu dhaaranayaa ama loo soo dirayaa malaa'igtaas oo waxya loogu soo dhiibaya? cudurdaar, oo loo cudurdaarayo, yacni muxuu ahaaye makhluuqa iyo ambiyada ilaahay hadhow berri inaysan xujo helin oo le waxyigii soo gaaro. qofku hadduu dooro waayo, xaqa qaada waayo, beri ka maalin inuusan xujo helin oo waxba la iima sheegin, waxba ima soo gaarin inaanu dhihin. aw nudran, ama digid loo digayo oo qofka hadda xumaanta ku socda inuu hadda loo soo digayo, laleeyahay hadhowdii waxbaha maaragtay cabaadin oo hadhowdii hashalaayin, adaa dariiqa xunkaa doortay. marka waxyiga ku hor yaalaahay waxaa weeye cudurdaar weeye, adiga wuxuu kuu yahay qur-aankaasi iyo sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam saxiixa ahay, waa marna waa cudurdaar oo hadhowdii xujo heli maysid, ilaa xaq waa ku hor yaalaahay haddii aad ka leexato. marna waa lagu digayaa, haddaad ka tagto waa ka shalaayi doontaa waay. haddaadan qaadan oo aadan qur-aankaas qaadanin waxa uu kuu sheegayo, camal fal aadan u qaadanin, yacni beri ka maalin adaa shalaynaya, shalaytadaasna waxba kuu tari maydo. marka qofka waxaa la gudboon inta uu waqti yahay inuu isisaxo, istoosiyo maaragta. ilaahay wuxuu yihi: innamaa tuucaduuna, kuwaasaan ku dhaartay, jawaabtii dhaartay waatan. innamaa kii tuucaduuna laydin
waxaa la yidhi waxa laydin yaboohayaah waa dhacayaan oo ah bacthigii iyo qiyaamaha laysoo bixinayo oo qof walbaba camalkiisii adduunka uu soo qabtay laga amaal marinayo hadduu khayr yahay hadduu shar yahay waa waaqic dhab ah waa xaqiiqa haabit oo sugan waay been ma aha mala'waal ma aha khiyaali ma aha qofkii haddaad iska dhacdhicido waxaas wax jira maahane meelaha aad maaragtay naftu iyo shaydaanku been kuu sheegaan hadhowdii shalaytadu aday kuu dambay doontaa waaye marka arrinkaasi waa wax waaqaco dhab ah u diyaargarooba oo qof walbo maalintaas waxaad ilaahay la hortegi laheed diyaarso waaye diyaarso adigu marka ilaahay wuxuu yidhi faida nujuumu tumisat markii la tirtiraa la yidhi yacni xidigaha markii la tirtiro faida nujuumu tumisat oo maaragtay xidigaha nuurkoodu markii la baabi'iyo yacni dahaba daw-uha xidigaha hadda waa ifayaan qoraxdii waa ifaysaa bishii waa ifay maalintii waxaasoo dhan laga qaado iftiyaankii oo mugdi carad isu bedesho yaa waida asamaau samadii markii furijat ila maaragtay la furo la dilaaciyo oo marka qaabkan hadday u dhisantaho wanaagga isku toosan ay ka baxdo yowma tashaqaqu samaau bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziila waa qiyaamiyaa la jooga sidan hadda habboon ay ku tugantao dhamay ka baxayda marka markii la furo samadii oo sida hadda loogu talagalay ka baxdo oo la dilaaciyo waa waqtigaas waida aljibaalu baa layidhi markii buurihii markii nusifat la gooyo ama la firdhiyo nasfigu waxa waaye buurihii oo dhan inta la qaadaa dhul meesha ku yiiloon inta laga qaado ayaa la tuurayaa oo waxay isu bedelayaan bus iyo siiga isu bedelayaan bus iyo siiga isu bedelayaan bal dhibaatadu meesha ay gaarsiisantaa lagu sawirayaa buurihii waaweynaa oo meeshii waxa waaye nasfi la goynayo ayakii dhama eber laga dhigayo meesha ka kacay dhibaatada maalintaas jirta darteedii sidaas u noqonaya waay nusifad marka waxaa waaye qulicat min makaaniha markaasi hawada bus ayadu siigaa hawada ku duulaydaa marta hawadaasi ku duulaydaa waida arusulu markii rusushii uqitat loo waqtiyeeyo oo maxaa loo waqtiyeynayaa rusushii waxaa loo yeelayaa waqti lilfasli waalqadaa kala saaridda ummadda la kala saarayo ayaka iyo ummadooda la kala saarayo ummadaha la kala saarayo labadii ishaysatay oo adduunkan isku haysatay la kala saarayo kooxdii ishaysatay la kala saarayo ilaa waxa weeye xaq iyo baadilku beri wada soco maayaan maanta nin walba waa iska jecjecleeya waa qaylinaya laakiin kuma xaq ku taagan kuma baadil ku taagan ilaahay baa maanta garsoore ah qolo loo xoog sheeganayaa ma jirto qolo la maaragtay cagta la marinaya ma jirto alxaqu yaclu xaqa ayaa kor noqonaya baadilkii ehelkiisuna maalintaas way baaba-ayaan oo jahanamaal ku aruurayaan waay marka markii loo waqtiyeeyaa layii rusushii waqtiga la kala saari lahaa liayi yowmin maalintii ka ah loo waqtiyeeyo ya liayi yowmin yoomkiisii ujilad loo ajilay oo loo madaleeyaa layidhi yacni liyowmin cadiimin waxa weeye addoommadu ay la yaabayaan lishiddatihi iyo ahwaashiisa ayaa loo dhigaa layidhi maalintaas duriba alajalu lirusul maalintaas lijamcihim in bini aadanka loo keeno ahay maalintee loo ajilay oo loo madaleeyey maaragtay rususha waxuu yahay maalintaas maxay tahay waaye waa maalin yaab leh maalintaas loo madaleeyey in la kala saarayo ummadda oo qofka xaq iyo baadilka dadka ahlubaatil iyo ahluxaq la kala saarayo alla muxuu yahay maalintaas waa maalin dhib badan waaye marka liyowmi alfasli kala saarka maalintiisa waa loo kala saaray liyowmi alfasli ayaa loo madaleeyey waaye oo maxaa la kala saarayaa bayna annaas dadkaa la kala saarayaa acmaashooda lagu kala saarayaa markaasaa qolana naarta aadaysaa qolana jannadii aadaysaa waaye yowm alfasl kala saarka maalintiisi la isku darsanaa maayo la isdhex yaaci maayo
mu'minka iyo gaalku isdhexyaaci maayaan, mushriga iyo muxuu ahaay muwaxidku isdhexyaaci maayaan. yacni waxa weeye ninka sunnada ku toosan iyo midka bidcada iyo balaayada qasa israaci maayaan. maalintaas waa la kala bixin, maalintaa waa la kala bixin wey. wamaa adraaka baa la yidhi maxaa ku ogeysiiyey, arrinkiisaa lasii weyneynayaa. maa yowmulfasli, yowmulfasli wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyaa la yidhi. yacni nabiga laleeyahay waa amar haa-ilah, waa arrin aadan qadarkiisa gara karaynin waaye, aada iyo aada u weyn. wax fudud maaha maalintaas, maalintaas wax fudud maaha. maaragtay waa maalo aada u weyn. weylunaa lay marka halaag iyo cadaab ayaa yowma-idin maalintaas u sugnaaday lilmukadibiina kuwa beeniyey xaqa oo rususha ilaahay beeniyey. maalintaas waxaa u sugnaaday, yacni halaag baa u sugnaaday, waa halaagsamayaan mukadibiintii oo dhan. maalintaas waa halaaga naartaa sugaysa, waa jahanamaa sugayda. ambiyada dadkii beeniyey, xaqa dadkii beeniyey, wanaagga iyo inay qaataan dariiqa wanaagsan laga waayay inay qaadaan, maalintaas waxaa weeyaan halaag baa u sugnaadaa lagu yiri. marka qof walba adigu is-ilaali waaye, intaan lagu oranin meeshaasaad aadaydaa. maanta jaanis haysataa nolosha intaad nooshahay inaad isdaba qabato ood maaragtay raacdo meeshii rasuulkii ilaahay uu maray, meeshii saxaabadiisu mareen, meeshii salafu saalix ay mareen. halkaas inaad maaragtay dadkii ilaahay yidhi radia allaahu canhum waraduu canhu, shahaadadaas dadkii la siiyo ilaahay uu ka raali noqday, ayakuna raali ka noqdeen, dadkaas meeshaas inaad maaragtay ka raadiyo. badbaadadu halkaasay ku jirtaa. iska dawareeg iyo qaylo kale waxba kuu tari maydo. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, alam nuhlik miyaanan halaagin alawaliina kuwii hore, kufaartii hore, gaaladii hore, ummadii hore naga horeeyey gaaladoodii soo mayna halaagin. sala fircawn iyo raggii lahaayo adduunkan ana rabbukum alaclaa la soo taagnaa jiray, yaa raggaas xagee ka baxeen? kulli waxa weye waa dhammaadeen waay. alam nuhlik miyaynan halaagin alawaliin kuwii horeeyey miyaynan halaaginaali. uma nutbicu waxaan raacsiinaynaa hum iyaka awaliintii waayee alaakhiriin kuwii dambeeyena waa raacsiinaynaa. waa alaakhiriin gaaladii dambe oo kufaartii dambe gadaal ka imaanayday, yaa kuwa maka jooga markaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam, iyo cid alla ciddii ku waafaqda beeninta risaaladii nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ilaa yowmi alqiyaama. qof alla qofkii ku waafaqa kuwaas wadadooda, iyakana halaag baa un sugaaya. waanu halaagaynaa. nutbicu waa raacsiinaynaa, fil halaagan ku raacsiinaynaa hum iyaga. uma nutbicuhum kuwaas waxaan raacsiinaynaa kufaarta ahayo awaliinta ahayo la halaagay, alaakhiriina kuwa dambena waa raacsiinaynaa waay. ballanqaadka ilaahay waay, waxba kama bedeli kartid. kadaalika sidaas ayaa nafcalu ku falaynaa bilmujrimiina, mujrimiintana saasaan u gelaynaa waay. mujrim oo mukadib xaqa ilaahay beeniyey oo diinta ilaahay beeniyey, sidaasaan u gelaynaa waay. marka yacni gaalada iyo dadkaas maaragtay xaqa kasoo horjeeda ama diinta ilaahay kasoo horjeeda ee maanta awoodda isbidaya ama inay maaragtay waxyihiin isbidaya, waxa weeye waxay ku jiraan yacni wax yaroo muxuu ahaay bidhaan yaroo been ah oo meel gaaraynin. waa dhalanteed weeyaan, waa wax yaroo beena weeyaan. waa inay ka tegaysaa, arrintu waa dhammaanaysaa. xaqiiqaduna halkaasay u tegayda. marka adduunyadan wax kastoo lagu siiyo haddii masiirkaaga uu meeshaa xun ku dhammaanayo, qiimo ma laha. qofka muslimkaa waxaa fiican inaysan waxaas waxba la noqonin adduunyada, iyo kuwa adduunyada maaragtay maanta maaragtay ku magacayseynaya inaysan macno weyn kula yeelanin. waad ogtahay masiirkoodii meesha uu ku dambeynaya inay sidaa u dambey doonto. marka adiga waxaa kula gudboon raac rasuulkii ilaahay iyo risaaladiisii iyo meeshay mareen, halkaasaa badbaada ku jirta. laysa hunaaka dariiqun aakhar, waddo kale oo loo leexdo oo badbaado lagu raadinayaa ma jirto. dad badan waa iska jiraan oo maaragtay waxyaalo kale iyo khuraafaad kale iyo meelo kale yacni wax ka raadinaya, laakiin waxaas oo dhan waxa weeyaan waxba tari mayso. waa inaad halkaa marto wey.
ويل هلاك با يومئذ maalinta usugnaaday للمكذبين kuwa xaqa beeniya halaag baa usugnaaday waa maanta qiyaamaha ee dadka la kala saarayo maalintaas waxa weeye oo ma awalintii aakhiriintii la raacsiinayo gaala jahannamo la isugu geynayo halaag baa mukadibiintii usugnaaday hadda marka waxa weeye anakiyana la hadlayaa nolo caqli celinaya anaga insaanka loo caqli celinaya wax loo sheegaya la tusaaleynaya ilaahay wuxuu leeyahay lam nakhluqukum yana idinka abuurin min maa'in biyo xaggood mahiinin ee daciif ah biyo liita oo aan qiimo weyn lahayn soo idinkama abuurin waay biyaha miniga oo maartay hooyada iyo aabaha biyahaas xaggooda lagu leeyahay biyaha markuu marada ka gaaraan iska dhaqaydo oo macna lahayn soo idinkama abuurin halkaas ina kama kii asalkiina soo halkaas ma ahayn leeyahay فجعلنا ميانا فجعلنا وحن يلنا ومركز فجعلنا وحن يلنا هو ماجي مهينك هايون إنك أبورني وحن يلنا في قرار مكان سوناشو مكين دوران يعني مكان لوسونا قرار ومال لوسونا هذا مكان دور سن مكين حفتين لحفتيه ورحم كهويدا وعلمه أي كبرمان إلهي بقى دياري إلهي بقى أبوري إلهي بقى مارتي ماشاس إيه وناجي إيه كل نلاشي وحده الحكي على ودياري هالكاس أيام كسوني وأنيالني إلى قدر أنتي لجار قدر معلوم إلى يقان ولي إسكفر ما ماش لكن ومدكوبا واي قدر ومعلومة بليه مارتي عادي هاي سجالكي بلاد أما وحي كير وعلمه أي مارتي كل لنا ينكاس واي فقدرنا وجويني إلهي فقدرنا waxaan gooynay oo ma qadarnay waa xibnihiisa sifaadkiisa qof kastaba axwaashiisa iyo dhan yaani sifadii aan ku rabnay waa qaabkii aan ku rabnaan u abuurnay waa yaani makhluuqi ilmihi caloosha ku jiray oo raxmka ku jiray waanu qadarnay waanu maqaagoynay waan sinay sidaan rabnaan u sinay waa marka qaabka adu waa u dhalanayso ilmuhu u dhalanaayeen sifaadka ilayeen waxa soo dhan waa wax ilaahay bixiyay waay wax bani aadan gacan ku leeyahay ma ah wax adigu aad gacan ku leedahay ma ah wax adigu aad sii karto ma ah marka ilaahay wuxuu ilaahay ka qadarnay fa ni'mal qadiruun waxa ni'mal haadi kuwii qadaray ilaahay waa subhanahu fa ni'mal muqaddiru huwa allah ilaahay baa sida gooyay oo qof walba sifada aad tahay ilaahay baa ku siiyay adigu gacan kuma lahayn waay ويل باه هلاك با اسغناداي يومئذ مالنتاس للمكذبين كو حق بيني هلاك با اسغناداي عدنا الهي دينع كانالنا لا كتسو waxa la yiri alam naj'al miyayna yeelin al-ard dulki miyayna ka yeelin kifatan mudku ku filan kifatan macna waxa kaafiya ama xaafida lakum bid in xiftida oo in kaafida oo idin xiftida miyayna ka yeelin أحياء حالتين كونول على ظهرها إنكو حفتها يعني ضود كذا وأمواتا كوادنت حالتهين يعني في بطنها إنكو حفتها سائلا إنك مدري ألم نجعل ميانا يلين الأرض للكي كفاتا ميانا كيلين متكافس وكفي لنا حفتسة أحياء حالتين كونول وأمواتا أما كوادنت انتوا يعني حالة النوشيين للك الدوشي ساتكون نوشيين إلى أنك سيدا إنك قدقني مركا دمتان والذين كدوغا يا سيدا إني يالي إنه الله الله وياه ساس أقاد واي وجعلنا وحان يالا فيها للكي دحدي دا أرضدي وايه رواسي بورا أيان يالني بورا تاك ورواسي كوة تاك شامخات واوين بورا واوينان يالني واي بورا حسان دوشي هذا لساري لألا تميد بكم سيسي إلا دقدقاقن وأسقيناكم وأنا إنك ورابني ما أنبيه فرات معان بيه معانا دولك دحديسو أما كسعرك كإيماناي أما دولك كإيماناي وبياشي وحاسو دمان دحدق نواي سي نولش أسعوتو وبني آدم يو مخلوقاتك كلابا أي أقول نولا هذان نعم هذا سوى إلهي بعد دحدقوي ويل هلاك با يومئذ مالنتاس للمكذبين أسونادي كوا حق بينية هلاك أي أسونادي
inطaliquu tagaa la yidhi ilaa maa kii aada kuntum aad ahaydeen bihi maagaba tukadibuuna kuwii beeniya wixii aad beenin jirteen bal maanta aadaa la leeyahay marka siiruu ilaa maa kuntum bihi tukadibuun oo cadaabkii awa maanta qiyaama la taagan yahay cadaabkii hortiina ah waa loo jeeda meel kaloo la aadaya maaha bal aadaa la leeyahay cadaabkii waa kaas maanta hortiinu yaalla waxaa dunya la soo socdaba inطaliquu aadaa la yidhi ilaa dhillin hoos aadaa la yidhi marka ilaa dhillin hoos aadaa la yidhi bihalaathi shucab oo saddex u saaxiib hooskaas waa hoos waa dukaankii jahannamo waaye ka soo baxay oo saddex qaybood u qaybsamay waaye saddex qayb waa qiicii iyo qurunkii wixii ka soo baxay jahannamo har laydinkaga dhacay harkaas aada harsadaa la leeyahay sida loo ciqaabayo harsada halkaasa harkiinaka ini ah inطaliquu aada ilaa dhillin hoos xaggii bihalaathi shucabin saddex qaybood u saaxiiba waay isdul saaran laa daliilin mid hariya ma aha hooskaas daliil yani mid hariyo har leh oo qofku markuu yani dhex galo uu ka helayo mataqaanaa qabow uu ka helayo sida adduunkaoo kale bardi iyo qabow uu ka helayo ma aha soo maaha walaa yuqnii min allahabi lahabka iyo holcana kaa difaaci maayo holaca iyo maxaa ka soo baxaya jahannamo iyo qurunkeedana kaa difaaci maayo bal waa kugu sii kordhinaya waay marka halkaas aadaa la leeyahay halkaa aada inahaa naartaasaa le jahannamo tarmii waxay tuurin bishaaraan inay tuuraysaa waa dabaabulis oo kalqasri sar oo kale ah dabaabulis waa dabku marka la shidayo soo dhuxulayo kama boodboodaan dhuxulahaas waa gow leh oo booday dhuxulahaas maxay la egyihiin adduunka aan kuwii waa yar yar laakiin kuwa kalqasri sar weyn oo weyn ka baatay dhuxula la egay tuurayda hali kaanahu waxaad moodaaba yani sharaaradaas waxaad moodaa jimaalaatun halo geel halo geel waa jimaalaat jamal jamcu jamal sufrun maaragtay maxaa la yidhaahdaa jaallo ah ama madow ah yani madow xaggiisa u yeelanaya madowgii naartii holcii qiicii wixii lagu tusinaya hala geelo madmadoobay u eg taalayo madow iyo xaggiisa u yeelanaya weylun halaag baa yowmaydin maalintaas u sugnaaday lilmukadibiina kuwa maaragtay beeniye xaqa yani waxa weeyaan halaag baa u sugnaaday maalinta iyada ah ilaahay wuxuu yidhi haadaa midkaanu qiyaama la taagan yahay yowmun maalin waay yowmu laa yantiquun haadaa kani waa yowmun laa yantiquun waa maalin aysan hadlaynayo maalin aysan hadlaynin qof iska hadli kara ilaa amar in la siiyo mahane yani qofku wuxuu rabo iskama sheegi karaa limaanta iyada waa soo istaagtay wixii lagu weydiiyey inaad ka jawaabto maahane dhegdhegtan iyo waxa adduunyada ma leh qof walba waa kutaada ku haysata walaa yu'danu loona idmi maayo lahum makhluuqii ama kufaartii waaye fayactadiruun oo marka ay cudur daartaan oo wixii ay subiyeen cudurdaar saasaan ugu kaliftay saasaan inay yidhaahdaan iyadan laga yeeli maayo waxaa lagu leeyahay adaa la timid waxaaga hawshaadi adaa soo buuxsata buuggaaga waa kan waa kuu yaalla marka cudurdaar kale iyo meelo kale waxba kuma jiraan le marka waxaa la yidhi weylun halaaga waa la yidhi ayaa yowmaidin maalintaa lilmukadibiina u sugnaaday haadaa yowmu lfasli wakaas warkii waa kaas haadaa midkaanu yowmu lfasli kala saarka maalintiisii weeye dadkao dhan la kala saarayo mu'min iyo gaal yaa waa qofkii xaqa waday iyo qofkii beenta waday nin walba waa qolad ishaysato dhamaa la kala saaraya waxaa lagu kala saarin ada qof walba haba kii xaqa waday xaqaad wadenihu adu waa saxneed kaliya ma aha kii baadilka wadaniyo adu baadilaad waday waa kaa khaldaneed ma aha laakiin mas'alada waxay tahay kii xaqa waday amaalmarintiisa uu helay jannadii uu aaday kii baadilka wadana amaalkiisa uu helay naartii uu aaday waay yani jaziha daba socda jazihi amaalmarintii daba socota marka adiga wixii aad wadi jirtay haddii aad saxnaayeen oo wax saxan aad wadi jirtay yani waa intaas waxaa lagu leeyahay amaalkaagiiad helaydaa waad fiican tahay waa saxan tahay
هي أمالك هذا جنة هذه آذى الأولى هدي خلد إيه بلاي ودي خلدن كسعتنا waxaa lagu leeyahay waad khaldaneedo barigaas wixii aad wadi jirto noloshaada cimriga ku dhameysay wax sax ma ahayn amaalkeedina waa tahanay halkaas dadkii loogu talagalay adoo kala halkaas loogu talagalay aad lagu leeyahay markaas hawshu waa isku dhamaatay marka ilaahuna badbaadi jamacnaakum alladhi wa idin soo kulminay oo makhluuqiyo waayo waa lagu oranayaa jamacnaakum wa idin soo kulmi wa idin soo jamcinay waay الأولين كوي هوري جمعناكم وين سو كل من كوينان دنبواي والأولين كوي هربا يعني waxa way dadkii hore kuwi dambaba khalaaiqdii oo dhan waxa la waayay maanta waa la isuun keenay waay kufaar al-awwalin min al-umam al-maadiya iyo kufaartii nabi maxamed ka soo horjeeday iyo kuwi diiday ilaa yawm al-qiyaama wixii oo dhan waa la isuun keenay maanta hal kana fadhida Allahu akbar الله أكبر بل ماذا حتى اكتاقوا فإن كان لكم علي هدو إذين سكنا هذي كيد حجرس فكيدون بلا حجرس دواي يعني قاب على إيقاف كتان ودسود دفاعدان والعقاب كي عمل مريت أوف كتان هدار هيدان مانتي والله ما هذا اللي هذين كادون كسوق الرباية ومانتي ماتي وحسموه ذي ما أنت أسهر كاسي ما دون فإن كان لكم كيد هذه كيد الليذهين يعني حيلة دواي النفتين كبت بعددان هدار حيستان يا فاحتالوا لأنفسكم لإنقاذها سماهن نفتين بلو حاليستو إن دي قبت بعددان بلسكو ضيع هذا ما ودعيس بواي ما ودعيس مركها وشاسو صعوم إذا قفوا البوس إلالي واي ويل هلاك با يومئذ مالنت أصل المكذبين كو حق بيني أسوقنا هذي مركز كالدي الأساس لوصو هذي مؤمنين تيالا قلاه إن المتقين كو عبصدا دونك مركز جوغان إلهي كعبصدا وإلهي دينتي سإلالية وأنبياء إلهي راعة ودينت إلهي منهج كذا ونكسم كو صعدا دونك مركز جوغان في ظلال أي هذا وخاص حر خاص ظلال يعني هو أساس حرر يعني هرك جنة هل قاس الجوجان وعيون في عيون إلى دحدود إلى برقانية هو معنى الجنة دحدود برواقة سي دحجوجان علي وفواكه فاكهوين الورا حيستو أول عنو أي أحدين ومما كي أفاش كذاسي يشتهون أي يشتهين يجعليهم الله وحي يجعليهم أي ما أنت كل حشران عليه الله أكبر الله نجم ديال لا هو نوضر مركا برواقة سي كل حشران عليه كوي هران والوشة جماش كجيرين مركا شتان ما بينهما آدي أكل فوقها لبعض قلا آدي أكل فوقيهن مركا وحال يقول إيه يقال لهم كلوا عنا واشربوا عبا هنيئا حالة كوي بوك سنة يكون راح سنة بما كي يكون راح سنة يعني هنيئا كوي يعني بوكسي كراحيسي الوجه بما كي كعنا لليه ماشان أتكسوا أنتهين بسبب ما كي سببتيسا كنتم هذا هيدين تعملون كوي عمل فلاح يعني عمل كي أدونك وناسنا تقودي يطاعدي يتوصنانتي إلهي دينتي سأتكو توصنا هيدين سببتي ذا ليه سببتي ذا ما أنت كل حفر لدان برواقلها هل قازلي مركز دينتي إلهي هلا راعو culimada oranaysa dadka kugu yeeraya wax fudud ha u qaadan qofkaas meeshaas uu ku wada barwaaqadaas uu kugu yeeraya badbaadadaas uu kugu yeeraya xumaantaas inaad ka badbaado iyo naartaas inaad ka badbaado kugu yeeraya qofka noocaas ah dadka waa kaaga qiimo badan yahay inaad fahamto Allah baa qofka muslimka ah inaad fahamto oo anbiyada Ilaahay iyo kuwii dhaxlo culimada ah aysan dadkaaga ekaanin qofka kale war meeshana badbaadadaada ku jirta war halkaana aakhiradaada ku badbaadaysa war halkaana maartay naar looga badbaadaya qofka ku tusinayaa waa kaaga gidisan yahay midka naarta kugu yeeraya ilaahay xaq Allah inuu fahamsiyo inna anaku yiri alle kadalika sidaas يعني كما جعلنا المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون يا سيدان ويالنا أي نجزي كو أمال مرينينا المحسنين كو وناقة صوبية كو إحسان كصوبية يعني ضدكاس وناقة صوبية إحسان كلي ماذا
saasaan ku amaalmarinaynaa waay saasaan ku amaalmarinaynaa weylun halaag baa yowmaydin maalintaas lilmukadibiin kuwa maaragtay xaqa beeniye u sugnaaday maaragtay mukadibiintii marka waxaa lagu leeyahay kuluu cuna watamatacuu raaxaysta qaliilan in yaraa laleeyahay adduunka inta la joogo waay innakum mujrimuun adanku waxaa tihi mujrimiin waxaan gaaladii laga hadlayaa iska adduunka iska raaxa iska bashaqlaqee waxaad ismoodaydaan laakiin wax yaro waay innakum mujrimuun mujrimiinaa tihiin iska cuna iska raaxaysta qaliilan in yar adduunyaduba wax yaro waay innakum mujrimuun weylun halaag baa yowmaydin maalintaa lilmukadibiin u sugnaaday waidaa qiila haddii la yihaha mujrimiinta lahum iyaga lagu yihaa irkacuu rukuuca oo dukada oo ilaahay u dukada haddii lagu yiraahdo yaa oo salaadii la amro laa yarkacuun ay laa yasalluuna dukan maayaan waay dadka salaada diida markii dukada la yihaah waa kaas halaagaasa sugaya waay halaagaasaa sugaya qofka muslimka haddii loogu yeero war salaada duka haddii lagu yeero waa jannadiiyaa lagugu yeeray badbaadadiiyaa lagugu yeeray meeshii aad kaga faka laheed halaaga aakhiro iyo adduunka lagugu yeeray laakiin haddaad aragto qofkii inta salaada loo sheegay duka diiday waa sidaas waidaa qiila lahum irkacuu markii lagu yiraahdo war dukada laa yarkacuuna duka maayaan soo ma jeedid kuwaas waa kuwa halaaga u sugnaaday waay marka in qof walba is ilaali oo markii lagugu yeero khayrka iyo salaada iyo khayrka lagugu yeero hore u degdeg salaada duko ogsoonow badbaadadaadii inay tahay weylun halaag baa yowmaydin maalintaas lilmukadibiin kuwa xaqa beeniye u sugnaaday fabiayi xadiiin xadiid waa kee oo bacdahu biayi xadiid ayu xadiidin xadiid kee ka ahoo bacdahu bacda alqur'aani qur'aanka dibadi yuuminuuna ay rumaynay waa kee dee maba jiro waay fabiayi xadiidin kayra alqur'aan yusadiquuna bihi ay xadiid waa kee oo qur'aanka aan ahayn oo ay rumaynayaan idaa lam yu'minuu bihi haddaysan qur'aanka rumaynina haddaad qur'aanka diido yaa xaggeed rumayni xaggeed aadee inkaaraad qabtaa waaye meel kaleod wax ka keenayda lama arkee meeshaana xaqu ku jiraa halkaana wanaagu yaallaa kitaabka ilaahayaa wanaagu yaallaa qur'aanku ku jiraa waray meeshaasaa khayrkiiyo badbaadadu ay taallaahe meel kale ha aadin